Big mood shift here. She was kidnapped by a serial killer, a man who took the lives of at least 3 teenage girls. But Kara Robinson Chamberlain is the one who got away. Kara Robinson oo waqtigeeda fasax ku qaadanaysa guriga saaxiibteeda ayaa waraabinaysa beerta ubaxyada waxyar kadib waxaa agteeda lagu soo baakimay gaari qaali ah kaasoo isla markiina uu kasoo degay nin ku labisan shaar cad iyo surwaal madow. Saaxiibteeda oo xilligaas ku maqneyd qubeys ayaa markay kasoo baxday musqusha waxay i weyday Kara Robinson. Haddaba yuu ahaa qofka afduubka geystay, sideena Kara ugu suurto gashay inay ugu dambeyn kasoo baxsato? Booliiska miyay u suurto gashay inay gacanta ku dhigaan afduubaha? Inta aan bilaabin muuqaalkeena maanta, haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqatay janaalka, fadlan ku soo bir adigoo saaraya subscribe si muuqaal walbo aan soo gelin oo kuu dhaafin. Leegtana nagu dheerigeli. Mahadsanidin. Kara Robinson ayaa ku dhalatay magaalada Lexington sanadu markay ahayd 1987. Lexington waa magaalo weyn oo leh cimilo qabow, sidoo kalena ay ku dhaqan yihiin dad aad u tiro badan. Bishii Juun 23 sanadii 2002, Kara ayaa go'aansatay inay maalmeeda fasaxa la soo qaadato saaxiibteeda oo lagu magacaabo Heather. Tara iyo saaxiibteeda ayaa jeclaysteen inay aadaan dalxiis yar oo kooban, balse intaysan bixin ka hor, Heather ayaa hooyadeed soo wacday waxayna u sheegtay inay u waraabiso ubaxyada intaysan bixin ka hor. Isla markiiba Kara ayaa bilowday inay iyada waraabiso ubaxyada si uusan waqti badan ugu lumin. Sida aan ku soo sheegnay bilowga muuqaalka, Kara ayaa inta ay waraabinayso ubaxyada waxa uu imaaday nin ku socda gaari qaali ah. Markii uu kasoo degay gaarigii, ninkii ayaa soo aaday dhanka Kara. Ninkan ayaa sidoo kale gacanta ku watay joornal. Markii uu yimid agteeda waxa uu sheegay inuu iyada kasoo arkay banaanka uuna rabo inuu siiyo joornaalka. Sidoo kale wuxuu weydiiyey inay waalidiinteeda joogaan. Kara ayaa ugu jawaabtay in gurigan uusan ahayn gurigooda. Ninkii ayaa sidoo kale weydiiyey cidda hadda joogta guriga. Kara Robinson oo war u haynin damaca ninkan ayaa u sheegtay in waalidiinteeda saaxiibteeda ay goordhow ka baxeen guriga. Markii uu xaqiiqsaday in ay kaliya joogaan 2 dumar, wuxuu isla markiiba qoorta ka saaray biskoolad wuxuuna ku dhex riday weel weyn oo u saarnaa gaariga, kadibna wuu ku dhex xiray. Sidoo kale ninkan ayaa Kara ka xiray afka, indhaha iyo gacmaha. Kara ayaa sheegtay inta ay sii socdeen inay dhagta u dhigaysay shanqar walba oo macquul ah si ay u ogaato meesha uu sii wado. Kara ayaa sidoo kale sheegtay inay socdeen inta u dhaxaysa 10 ilaa 15 daqiiqo. Markii uu afduubaha imaado gurigiisa, wuxuu weelka weynaa ee ku jirtay Kara ka qaaday daboolka. Kara oo ku dhagneyd neefta, sidoo kalena khatar ugu jirtay inay dhimato, ayuu ka soo saaray weelkii. Wax yar kadib markii ay soo miirsatay, waxa uu sheegay inuu dili doono haddii ay isku daydo inay ka hor imaado amaradiisa. Ninkan afduubka geystay ayaa xaaskiisa ku maqneyd safar shaqo. Kara oo markaan garowsatay inay nafteeda ku weyn karto haddii ay jebiso amarada ninkan, ayaa ogolaatay amar walba oo ninkan ka soo baxa. Habeenka sida ay sheegtay, Kara wuxuu u geystay in ka badan 4 kufsi. Afduubayaasha noocan oo kale ah waxay inta badan caado u ah inay dileen qofka markii ay ka dhameystaan dantooda si aysan caddayn u reebin. Laakiin Kara oo rabtay in gacanta lagu dhigo ninkan si uu dhibaato kale ugu geysan dumar kale oo iyada la mid ah, ayaa go'aansatay inay la saaxiibto ninkan. Waxay bilowday inay weydiiso su'aalo tiro badan si ay u ururiso macluumaad ka caawin kara inay baxsato. Afduubaha ayaa aad ugu riyaaqay wada sheekaysigooda, xataa wuxuu bilaabay inuu uga sheekeeyo noloshiisii hore. Wuxuu u sheegay inuu ahaan jiray ciidanka militariga, balse shaqada laga soo saaray kadib markii uu galay dambi aan sidan u weynayn. Afduubaha ayaa sidoo kale asigana bilaabay inuu Kara weydiiyo su'aalo tiro badan. Mid ka mid ah su'aalihii uu weydiiyey waxaa ka mid ahaa inay hore u soo samaysay galmo iyo in kale, waxayna uga jawaabtay maya. Afduubihii ayaa bilaabay inuu Kara ka dhaadhiciyo inay isla noolaadaan intay xaaskiisa ka imaanayso. Kara oo qorsheeda ahaa inay ka baxsato ninkan ayaa ogolaatay, waxayna seexdeen habeenkaas labadooda sariirta. Wuxuuna u sheegay inuusan aamini karin, wuxuuna ka xiray gacmaha. Kara ayaa hurday dhowr saacadood, balse soo toostay intii aysan soo bixin cadceedda, halka afduubaha uu hurdayay. Kara oo heshay fursad dahabi ah oo ku baxsan karto ayaa isla markiiba xariga iska furtay iyadoo adeegsanaysa ilkaheeda. Waxay sidoo tartiib ah ugu soo degtay sariirta, iyadoo gurguurasho iyo taagtaagsasho ku tagtay albaabka qolka. Kara oo ka baqaysay inuu soo toogto haddii uu arko, ayaa intii awooddeeda soo orday. Isla markii ay guriga ka soo baxday, waxay ku dul dhacday gaari. Intii ay ordaysay, 2 nin oo gaariga saarnaa ayay u sheegtay wax walba sida ay u dhaceen, waxayna geeyeen saldhig booliis oo markaas ka dhawaa goobta. Booliiska ayaa markii hore u qaatay inay been sheegayso, balse markii dambe waxay tixgeliyeen cabashadeedii. Booliiska ayaa wacay hooyadeeda, balse intaysan la midoobin ka hor, dambiibaarayaashii ayaa ka codsaday inay geyso goobta lagu afduubtay. Kara oo markaas xaalad argagax ku jirtay ayaa u suurtagali weyday inay booliiska siiso tilmaam buuxda. Booliiska ayaa Kara geeyay isbitaalka si xaaladdeeda loo dabiibo, laakiin Kara ayaa ka quusanin inay booliiska ka caawiso sidii loo soo qaban lahaa afduubaha.
Markii ay soo hagaagtay xaaladdeeda, waxay booliisku u sheegtay dhammaan tilmaamihii iyo macluumaadkii ay markaasi xasuusan kartay. Daqiiqado yar oo gudahooda, booliiska ayaa soo gaaray gurigiisa, balse goor hore ayuu ka tegay. Haddaba yuu ahaa ninkan? Afduubaha ayaa lagu magacaabi jiray Richard, wuxuuna dhashay 29kii Juulaay sanadkii 1963. Sanadkii 1997 wuxuu dilay laba gabdhood oo walaalo ah oo lagu magacaabi jiray Christine iyo Catherine. Booliiska ayaa isla markiiba ku wargeliyay FBI-da, waxayna bilaabeen ugaarsi dalka oo dhan ah oo ay ku baadagoobayaan dambiilaha. Booliiska ayaa soo gaartay akhbaar ah inuu ku sugan yahay hotel. Isla markii ay hotelka yimaadeen, Richard ayaa mar hore ka tagay hotelka. Booliiska ayaa sidoo kale u suurto gashay in ay helaan lambarka taleefankiisa, waxayna bilaabeen inay dabagal ku sameeyaan halka uu joogo iyagoo isticmaalaya IP address-ka taleefankiisa. Booliiska ayaa afarta gees ka hareerayay Richard, laakiin markii uu arkay inuu baxsan karin ayuu ugu dambeyn gacantiisa isku toogtay. Dhimashadiisii kadib, waxaa soo baxday dambiyo hor leh oo asiga geystay. Richard ayaa sidoo kale dil u geystay gabar yar oo 16 jir ah, Sophia Silva. Dhanka kale, Cara Robertson ayaa go'aansatay inay ku biirto booliiska si ay booliisku uga caawiso dambiyada noocan oo kale ah, maadaama iyada ay waayo-aragnimo ka qaaday baxsashadii ay kasoo baxsatay afduubihii halista badnaa ee Richard. Cara ayaa ugu dambeyn la guddoonsiiyay bilad geesinimo. Hadda 2022, Cara Robertson waa hooyo haysata 2 carruur ah, waxayna si ku meel gaar ah shaqada uga fadhiisatay sabab la xiriirta inay waqti siiso labadeeda wiil. Intaas waxaa nooga eg muuqaalkeeni maanta. Haddii aad nala soo gaartay dhammaadka muuqaalka, fadlan ku soo biir channel-ka adigoo saaraya subscribe, like-tana nagu dhiirigeli. Mahadsanidin.